kamid ah goobjoogayaashii ku sugnaa hotel Naasa Hablood 2 markii uu weerarka uu ka bilowday. goobjoogahan ayaa lagu magacaabaa Ayaan Cabdi Axmed, waxayna ugu horeyn ka waramaysaa sida ay weerarku u bilowday. meesha muxuu ahay gaari waxa yaalo oo weyn oo la sameeyanayo oo halaysan oo kuwan iska roga ama loo yaqaan ama iridurta hotel korkiisa yaalay. anakana meesha gaari aan ugu baakinayo hotel gudihiisaan galay, intaana maqaayadan u socod aan la gaarin ayaa qaraxa dhacay. kadibna waa cararay meelaan galay. meesha markaa galnay gudaha waxaa hotel ku soo galay askar. waxaan damcaa inaan ku cararo, waxaan u maleynayay gurmad caawinaado meesha imaaday ama qoladii hotelka wargeenaysay. kadib ayaa niyadeeda waxaa kusoo dhacday meesha markay qarax ka dhaco inay hore gudaha usoo galaan dadka laynay. waan meesheedan ku yaro dhakaday, ayagoo way iskala qaybiyeen, qaarna waxay aadeen kor, qaarna waxay aadeen hoos, waxay bilaabeen kadib rasaas inay furaan. waa gartay. marka meeqa camal ay ahayd tirada raggaas hubaysaneed arkayso gudaha hotelka usoo galay? 7 nin ay ahaayeen, 7 nin. waa gartay. inkastoo meesha mugdi iyo qiic ka jiray markii qaraxa uu dhacay kadib ay soo galeen gudaha. waa gartay. marka adiga ayaanay maxaa indhahaaga ay qabteen oo dad dhimasho ah ama dhaawac ah ood aragtay? wallaahi horta wax la soo koobi karo meesha arxandara ka dhacday meesha dhimasho dad badan indhayga waa qabteen, dad badan oo la layla indhayga waa qabteen. wax la qiyaasi karo maaha. markii ugu dambeysay intaana soo bixin qarax kale ayaa ka dhacay jidkan oo hotelka dhabarkiisa oo dhinacan godka Jilcow aad Xaawataako meeshii aan jirta baarlamaanka hore gudahana muxuu ahay markuu cabaar ka bacdi la joogaba way nimanka dhexdooda mid kamid ayaa isqarxiyay. maray meesha ay ku jiraan adiga saacad iyo bar ayaa waxaa imaaday gurmadka ciidamada dawladda. meeshan mas-uuliyiin badan ayaa deganaayeen oo ku jiray. waayahay. marka adiga hotelka Naasa Hablood gudaha maad u gashay labo mase banaanka ayaad ka taagneed saad usoo baxsato? sharaxaad yar bal dib iigu celi aniga dhageystayaasha. gudaha ayaan ku jiray dadkii askartay gurmadka loo soo bixiyay ayaan kamid ahay. gudaha ayaan ku jiray markuu qaraxa dhacay hore ayaan usii cararay. ani gudaha maqaayada marka hore ma aanan gelin, daaradan dhex taagna ganjeelka markaan ka galay markuu qaraxa dhacayna hore aan usii cararay. marka hadday ku arkeen maxay ku dhaheen nimankii adiga aad aragtay oo hubaysnaa oo gudaha usoo gala hotelka? ismaanaan arkin laakiin ana arkay markaan cararay meel laabaan ku gambaday waxaan damcay inaan weligeena qarax maanaan arkin. waa shoogsanaa mar waxaan damcay inaan u wacdo dokaaliya caawiye. haddana waxaan is dhahay qoladii ameerka u kaadi meesheeda ayaan ku jiray intii wax dhacayna meeshaan dhex jiifin. markii dambana askarta dawladda ayaa imaad dadkii la caawiyo lasoo bixiyay ayaan kamid ah. dhimashada adi marka ma tirin kartaa inta qof oo aragtay? 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo ka badan dabcan waxay ahayd. dhimashada 11 qof ayay indhayga qabteen. haddaysan suuxsaneen 11 qofood ayaa indhayga qabteen. dhaawacana markaan banaanka soo istaagay wax la qiyaasi kara ma aheen. si arxan darre dadka u jajabeen, qaar gacmahooda go'day, qaar way iska ashahaadanayeen. wixii gudaha lagu laayay laakiin war uma haay, laakiin wixii marka intaan soo baxay inta meesha aan joogin inta u dhaxaysay dadkii daadsanaa indhayga qabteen. dhimashada 11 qof ayay. waa gartay. marka 11kaas qof ma dad wadada marayay, ma dad rayida, mase dadka hotelka deganaa mas-uuliyiinta iyo ciidamada isugu jiray ahaayeen? waxay u badnaayeen shaqaalaha hotelka iyo waxay u badnaayeen dad rayida. dadka banaanka ku arkay wax mas-uuliyiin oo dhintaani ma arkin. haddee mas-uuliyiin ay ahaayeen maan garan karin saacadaas. ani nafskay waa shoogsanaa si fiican umaanan eegin, laakiin waxay ahaayeen inta badan dad shacab ay ahaayeen. waa gartay. adi maqaayadaa ku socotay marka ma Naasa Hablood 2 ama 2 ayay ku dhex taalay mise banaanka ahayd oo wadadaa maraysa? maqaayadan u socday aniga xataa gaariga wiil ila socdo darawalka ahayd meesha ku dhaawacmay, gaarigeedana wuu gubtay, askarigiina ilaaha ka badbaadiyay. waa gartay. qarax ayay markii hore ku bilaabeen intay gudaha usoo gelin hotelka. marka qaraxaas baabuurka qarxe ee watee noocee ayuu ahaa? ma banaanku ku qarxay mise gudaha hotelkay ku qarxiyeen? baabuurka banaanka ayuu ku qarxay. nuucuu ahay maan garanay laakiin banaanka ayuu ku qarxay gaariga. aniga gudaha ku jiray baabuurka maanaan arkay. marka yaa usoo gurmaday dadka dhaawacyadii dhimashada oo daqiiqada gudahood meesha waxyeelada dadka ay soo gaartay ahaa? ambalaasa timid iyo askarta dawladda imaaday oo dhowr nooc iskugu jiraan ayaa meesha soo gaareen. waa gartay. dad soo badbaaday oo adigoo kaleeto oo kasoo baxay ma aragtay? waa arkay 5 qofood ayaa ahayn oo dad waxba gaarin. 2 hablood iyo 3 rag ayaa u jeeday oo dadkii aysan waxba aysan gaarin oo caadigooda kusoo baxayeen. waa gartay. marka xaaladda iyo jawiga guud ee meesha say isu bedeshay markii qaraxa uu dhacay, xabadaha ay bilowdeen? sawir ma naga siin kartaa? inkastoo saa ii sheegto waa runta aad naxsan tahay oo aad garan kartid dhibka meesha ka dhacay. wax la qiyaasi karo ma ahan. waa meesha dhan waa burburtay, jidkii dhan waa jajabnay, caradii dhan wada dhiig, baabuurtii gubanaysay. maqaayadka iyadana la fariisto oo magaceeda iga maqan oo soortii wax lagu iibiyo dhowr jeer iyadana qaraxay ka dhacay. dadka go-aan daadsanaay. meesha meel sidaa lagu gada ayaa u yara dhaweyd. laamiga oo dhan war si kaleeto ahay. marka aniga mid iga naxisay oo igu kalifta caawinaa VO-da ka hadlo anoo gabar yar oo daayar ah
oona weligeen nabad aanan arkin haddana midaan waa mid aad iiga qalqalsiisay waayo waxaan leeyahay meesha waddankan Soomaaliya shacabka isku tashtaan leh wadidka hadda maanta qaraxa ka dhacay oo loo soo dhaafay hoteelka ayaantaan dhan wuu xirnay shalay iyo maantay askar iyo waardiyiin muusan joogin marka aniga waxaan u arkaa in wax la isku ogyahay inay tahay sheekada oo shacabka islaamka Soomaaliya lagu dhameenayo kasaraha ku geystay cidoo qabanaysa male hatta shacabka la noqon qabilkana la iska dhigin midkii qarax wada la qaban dalkeenu qaboobi maayo gacmaha isqabsada walaalayaal gacmaha isqabsada